si aan u sameyno view waxaan isticmaali karnaa drag and drop oo ah inaan furano qaybta design-ka oo qaybtan view-yada ay yaalaan oo aan kasoo jiidno oo shaashada aan soo saarno. waxaa kaloo isticmaali karnaa qaybta qoraalka inaan tagno oo aan qorno, laakiin mar walba waxaa fiican dhinaca koodka oo qoraalka inaad la qabsato oo aad barato, hadhow bedelkeeda aad u kuugu sahlanaana. waxyaabo waxaa jira marka drag and drop ay isticmaashid customization-kooda drag and drop ama UI ahaan ay u adagtahay. marka maadaama hadda aad bilaabayso badanaa la qabso inaad caadi u qorto. okay, tusaalaha ugu horeeya text view aa sameyneynaa. si aad text view u sameysid marka hore angle bracket aa furee, kadib waxaa qoree magaca view-ga. tusaalahan hadda aan qoreyno waa text view. text view markaa qoro angle bracket-ka waa xiraa. okay, waxaa kaloo furaa angle bracket kale, laakiin markaan waxaa raacinaa angle bracket-ka forward slash, kadib waxaa raacinaa text view, kadib waxaa soo xiraa angle bracket-ka. okay, saas waxay igu sameysan text view-gay ugu horeeyay. meeshaan cilada oo sheegaya waxay tahay text view-ga attribute ama wuxuu u baahan yahay properties. okay, si aad properties ama attribute u siisid, attribute astaamaha sida dhirirka, joogiisa ama balaciisa. qaybta hore laba angle bracket aa furan. angle bracket-ka hore meeshuu ku dhammaado haddaad mouse-ka geyso oo aan enter dhahdo, kadib meeshaan ayaa ku tixi kartaa propertieskiisa ama attributeskiisa. okay, si uu cilada uga baxo wuxuu u baahan yahay attributeska required ay tahay oo loo baahan yahay in la qoro, la-aantooda uusan shaqeyneynin ama cilada aysan bixin. waxaa ka mid ah width iyo height-ka. si aa haddaba propertieskaas aa u siisid, marka hore waxaa qoreysaa Android, kadib waxaa qoreysaa magaciisa. hadda tusaalahaan height-ka oo kale layout height waa kana oo isoo baxay. haddaa qortid kadib waxaa siinaysaa value wrap content. waxaa kaloo u baahan yahay Android layout width, asna waa required, asna waxaan siineynaa wrap content. labadaa markaa siino ciladii way baxday, micnaheeda labadii wixii haddaanan joog haddaysan lahayn iyo balac shaashad ma lagu soo bandhigi karo, waa inaan joog iyo balac siisaa. okay, joogooda iyo balacooda waxaan ka dhigay inta ay la eg tahay inta qoraal ku jiro markaas, maadaama qoraal aan kusoo bandhigi rabno. okay, si aan qoraal ugu soo bandhigno waxaa isticmaaleynaa attribute kale Android. attribute-kaas waxaa la lahaa text, kabacdi qoraalka caadiga ugu qoreysaa. tusaale ahaan haye akhyaarta af Soomaaliya ku qori kartaa ama af English, hadba wixii aad u baahan tahay markaas baahidaada ay tahay. hadda qaybta imaado design-kayga waxaa ku arki doonaa oo saaran meesha text view-gii aan soo qornay oo ay ku qoran tahay akhyaarta. okay, marka waxyaabaha text view-ga uu ka kooban yahay maxay yihiin? text view-ga, bracket-ka iyo text view-ga iyo propertieskiisa ama attributeskiisa, labadaba waa dhihi kartaa. dhirirkiisa meequu la egyahay, balaciisa muxuu la egyahay. wrap content micnaheeda waxaa waaye dhirirkiisa wuxuu la egyahay inta markaas asaga
content ku jiro. Tusaale ahaan haddii qoraalkii aad dheereeyo dhererkiisu wuu dheeraanaa, haddii qoraalka aad gaabiyo dhererkiisu wuu gaabanaa. wrap content micnaheeda waa intaas. haddii aan rabo tusaale ahaan inaan farta weyneeyo, waxaan dhihi karaa waxaa isticmaali karaa attribute la lahaa font size. haddii font size aad qortid ama size aad qortid, text size, kadib waxaa qori kartaa text size-ka ka rabtid. haddaan 25 sb badanaa lagu cabiraa text size-ka 25 sb. haddaa design-ka tago textii wuu weynaaday. okay, waxyaabaha kale oo Android text view-ga aan ka bedeli karo waxaa ka mid ah color, text color. kadib waxaa siin karaa colorka rabo, tusaalehaan primary tag, color hore barnaamijka uu ka saawaaye. ama waxaa kaloo siin karaa primary tag markaasi design-ka hadaa fiiriyo wuxuu noqday okay. ama color kale caadi ah siin karaa. si aa color caadi u siiyo, hexacode colorka qoraa. tusaale ahaan hadaa rabo cadaan FFF waxay lamid tahay cadaan. okay, hadaa rabo cadaanka inaan ka bedelo okay, aan taabanaa colorka rabaa inta color selection-kan midkaa raba ka dooranaa. okay, hadaa dhaho DEF 307 jaalahan ay lamid tahay. hadaa inta tago fartiis maxay noqonay text view-ga jaalay noqotay. okay, waxyaabaha properties-ka dhan oo text view-gaas oo leeyahay halkaan aan ka bedeli karaa. hadday dhererkiisa tahay, hadday balciisa tahay, haddii wax ku qoran ay tahay, haddii farta kalarkeeda ay tahay, everything oo text view properties-kiisa oo leeyahay. marka properties-ka qaabkay u shaqeynayaan, marka hore properties-ka qaybta hore bracket-ka hore inay galaan waaye. waxaa kaloo properties-ka ay u baahan yihiin inay lahaadaan key iyo value. qaybtan hore oo key ah, kadib equal value. keyada hadda aan haysan waxaa ka mid ah layout height, Android layout width, Android text. kabacdi value-yada aan haysana maxaa waaye, waxaa ka mid ah ay aqyaarta waxay ku jirtaa Android text. key iyo value-ga waxaa u dhexeyso equal. okay, key walbana waxaa ka horeeya Android colon. okay, xeerar kale ee text view-ga aa u baahan tahay ama dhammaan view-yada markaa sameynaysid waa inay ahaadaan camel case. tiida capital ay ahaato, v-dana capital ay ahaato. haddii aan wax ka mid ah qalado, tusaale ahaan tiida small hadaa ka dhigo, waxba lama soo bandhigayo. text view ciladaa jirto. wixii aan sameynayo colorkii iyo fartii intaan la ekeysiinayo wixii oo dhan lama soo bandhigayo. okay, sababtoo ah maxaa sameeyey, xeeraa jibiyey tiida capital inay ahaataa la rabaa. haddii xitaa tiida aan capital ka dhigo laakiin v-da small ah ka dhigo waa cilade. markale hadaa ku laabto cilada jirto, waxba lama soo bandhigayo. so si wixii igu shaqeyso xeerka inaan raaco waaye, tiida capital, v-da capital. okay, kadib markaas way ii shaqeynayaan sidii laga rabay ay igu shaqeynayaan. sidoo kale space lama ogola meeshan. space hadaa siisid cilad ay noqonay, design-ka hadaa tagana wax mala soo bandhigayo. okay, marka waa inaad siday tahay aa u raacdaa. text view qaabkay u qoran tahay aa u qortaa. okay, text view hadaa halkaas ugu tago, tusaale ahaan haddana image qaabka loo soo bandhigo sidoo kale waa image view. image-yaa la qoraa,
propertieskiisa la siinaa, kadib waxaa la siinaa meeshuu ka bilaaban lahaa, meeshuu ku dhammaan lahaa. bracketkii oo closing angle bracketka waa kaas, opening bracketkana waa kan. propertieskana waxay galayaan opening bracket. marka aad samaysid isla markii wuxuu ku dhammaystirayaa layout width iyo layout height, sababtoo ah waa required. labadaas la'aantooda viewga ma la arki karo, ma muuqan karo. okay, imageka sidee image ugu tusi karaa, ama image sidee usoo muuqan karaa? si uu image usoo muuqato waxaa isticmaalay properties la dhahayo source ama src. haddaa dhaho imageyada aa haysto isoo bandhiga. ac langer haddaa dhaho designka haddaa imaado, imageka waxaa ii muuqanaya android ac langer. haddaa rabo computerkayga inaa imageka soo qaado oo barnaamijka ugu soo daro, okay, sidee ugu soo daraa? computerkaaga tagaysaa, imageka meeshuu ka furan yahay tagay. hadda sidaan oo kale imageyada aa ii furan, waa tagaysaa, waa soo koobiyeynaysaa. copy markaa dhahdid, qaybtan android inuu kuu saarnaado, folderada waa soo baxee. folder waxaa raadinaya resource ay ku qoran tahay. folderka resourcega waxaa kasii raadinaya drawable folder ay ku qoran tahay. folderkan waa meesha sawirada la dhigo. folderka layoutna waa meesha la dhigo designada iyo naqshada la sameynayo. okay, kan drawable-kaa tagay, kadib waxaa si toos ah basta ugu dhihi kartaa drawable sawiradii aa computerkaaga kasoo koobiyeysa. okay, haddaa rabo kaarka inaan soo bandhigo sawirka gaariga, meeshan waxaa ku qoraa intay ku jiraan add drawable image car. kan add drawable image car haddaa dhaho oo designkayga aa usoo laabto, waxaa isoo bandhigmaya sawirkii kaarka gaariga. haddaa rabo inaan sawir kale soo bandhigo, intaa ka bedelaa image flowerkii ay soo bandhigmaya. haddaa rabo inaan soo bandhigo image kale, image morning, imageka morningka ay soo bandhigmaya. okay, marka highlight saaro, imageka intoo haysto oo dhan ay muuqanayso. waxaa kasoo bilaabo. okay, waxaa kaloo ka arki kartaa blueprint. haddaa soo deysid imageka mujeedaa, meeshaan ku bilaabana, meeshaan ku ekaana. okay, waxaa sameyn karaa imageka intaan oo dhan inaa buuxiyo. waxaa jiro attribute oo imageka oo leeyahay oo la yiraahdo scale. okay, scale type, fit center haddaan dhaho, waa qaabka hadda uu yahay fit center. fit keliya haddaan dhaho, okay, fit xy dhammaan isbuuxi. haddaan dhaho center crop ama center, imageka centerkiisa bisaa arkee. haddaan dhaho center crop, okay, marka scaleka imagekaaga qaabka u muuqan lahaa, meesha fit maa loogu dhigaa, centerka imageka maa lagu tusaa, imageka intoo la egyahay maa la ekeenay. fit haddaan dhaho fit end haddaan dhaho, imageka haddo qaybta hoosoo tagaa, imageka intoo haysto qaybta hoosoo tagaa. haddaan dhaho fit start haddaa geliyo, valuega mar walba la bedelaa. fit start haddaa geliyo, imageka qaybta koroo tagaa. marka imagekaasna propertieskaas uu leeyahay. propertiesyada qaarkood
scale type-ka iyo src-ga textiga ma laha marka image gaar u yihiin. Okay, image view-gana waxaan u maleynaa inta kale waa isaga mid. Layout width, layout high, laakiin source iyo scale-ka ay ku kala duwan yihiin. Okay, shayga kale aan rabo inaan soo bandhigo waa button. sidoo kale button magaciisa qore wuxuu leeyahay height iyo width. badanaa wrap content yaa la isticmaalaa. qaabab kale hadhow gadaal ka arki doonaa. buttonka textiga ku qoran maxaa waaye? textiga ku qoran waxaa ka dhigaynaa halkan. Okay, haddaan design-ka tago button-aa imaaday waxaa ku qoran halkan. That's great. Okay, buttonka asna sidoo kale size uu leeyahay, font size, font color, waxyaabo qaarkood waxyaabo badan, background color, properties dhowr uu leeyahay. marka property-ga markaa u baahatid hadaa English-ka taqaanid English keyword-ka ku raadin kartaa. hadaadan English-ka ku fiicneen oo aad hore ka soo saari karin ama aad ku wareerto internet-ka ka raadin kartaa Google-ka. hadaa rabto tusaale ahaan qaabka hadda oo textigan loo soo bandhigayo khiyaarta waa dhammaanteeda siday u qoran tahay bannaankana loogu soo bandhigaa, view-gana loogu soo bandhigaa. ka waran haddaa u baahan tahay wax walba oo xagga aad ku qortid iyadoo capitalize inaad soo bandhigtid, maxaa sameynay? waxaa raadinay properties lahaye capitalize. Okay, capitalize, deprecated, text all caps, kan true hadaa ka dhiga maxaa dhacaya? text view kor fiiri ayaa khiyaarta dhammaanteed waxay noqotay wada capital. Okay, marka waxaan u maleynayaa saddexdan view oo asaasiga ah, text view-ga, image view-ga iyo button-ka qaabka loo sameynayo, property-yadooda iyagoo tusaalahooda wata inaan aragnay. waxaan rajeynayaa inaad fahamteen. inta aan cashirka xiga ku kulmayno waxaa idin leeyahay khayr badan.